wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 379aad ee barnaamijka Tubta Nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doono muhiimadda raadiyaha ee ahaanshaha isha wararka. Qaramada Midoobay ayaa sanadkii 2012 Februari u aqoonsatay maalinta caalamiga ah ee raadiyaha. muddo sanada raadiya ma uusan ahayn isha wararka balse waxa uu ahaa madal ay qoysaska kala lumay isku heli karaan. raadiya waxa uu xoojiyaa dhaqanka wada hadal iyadoo laga qayb qaadanayo barnaamijyada sida wicitaanada idaacadaha, doodaha iyo wixii la mid ah. wuxuuna bixiyaa fursad si toos ah hawada looga doodo si dimuqraadi ah oo xoojinaysa nabadda. si kastaba ha ahaatee baahinta raadiyaha waa mid waqtiyeysan oo dhageystayaasha hal mar fursad u heli karaan. waxayna u baahan tahay qalab tiknoolajiyadeed. dalalka sida Soomaaliya oo kale ah inta badan raadiyaha juqraafi ahaan oo ay xariisan yihiin inta ay gaari karaan. aas-aaska internetka wuxuu xal u keenay gaarista dhageystayaal badan. sanadahan inta badan oo ka mid ah barnaamijyada iyo wararka raadiyaha ayaa laga heli karaa online-ka, kuwaas oo laga dhageysan karo dalal iyo qaarado kala duwan oo aysan markii hore gaari karin raadiyaasha. tani waxay sare u qaaday dhageystayaasha iyo ka qaybgalayaasha doodaha iyo barnaamijyada raadiyaasha. wararka iyo warbixinada lagu baahiyay internetka waxaa lagu magacaabaa podcast. wararkaas iyo warbixinada internetka lagu baahiyo waa la dhageysan karaa ama la daawan karaa xilli walba. qofkii shaqo ama arrimo kale ku mashquulsan wuxuu fursad u heli karaa inuu helo dhammaan wixii warar, wareysiyo iyo warbixino internetka lagu baahiyey. isticmaalka podcast uma baahna qalab casri ah ama leysin warbaahineed iyo waqti go'an. waxay taasi keentay in wariyaal badan ay si iskooda u samaystaan podcasts ayagu ay leeyihiin oo ay wararka ku baahiyaan. Haddaba dhageystayaal waxaan wareysi ku saabsan isticmaalka broadcasts ama baraha internetka ee wararka iyo warbixinada lagu baahiyo ka wareysanay Mawlid Xaaji Cabdi oo ah madaxa broadcastiga HBN oo ah bar ay boqolaal kun oo dhageystayaal ku xiran yihiin. waxaana aan ugu horreyn weydiinay su'aasha ah waa maxay podcast? bal dhageystayaasheena u sharax. horta markaan sharaxayna podcastiga macna ahaan wuxuu yeelanayaa dhowr qaybood oo kala duwan. waxaan u malaynayaa inaan daqiiqad ilaa 2 daqiiqo aan lagu soo koobi karin. waa mawduuc yara ballaaran, laakiin haddaan isku dayo inaan soo koobo ama soo ururiyo ereyga marka la isticmaalayo horta podcast inta badan luuqad ahaan haddii si fiican loo fasiro waxaa dadku ku soo dhacaysa inuu yahay nidaam cod keliya ama audio waxa la yiraahdo oo internetka ama la geliyo ama asagoo mataqaanaa hore loo duubay ama toos la degeysanayo. laakiin hadda waxay soo noqotay in la yiraahdo bacdama hadda barihii bulshadana ay bateen qaybo kala duwanna ay noqdeen kuwa isu wato cod leh iyo video kuwa video leh ayaa marka dhammaantood waxaa la iskugu geeyey in la yiraahdo podcast. marka dhinacna waxay ka gelaysaa digital media oo haddii aad Facebook wax ku gudbinaysid, haddii aad YouTube wax ku gudbinaysid, haddii aad adeegyada kale isticmaalaysid ha noqdo kuwa internetka laga isticmaalo ha noqdeen laymanka tooska oo kale. marka waxaasoo dhan markii la isku geeyey ayaa waxaa la ogaaday in hadda warbaahintii caadiga ahayd ama traditional media wixii la oran jiray laga gudbayo oo hadda loo gudbiyo nidaamka digitalka oo podcastiga hadda uu yahay oo dabdhaxaad uu yahay. aragtidaada sidee ayuu broadcastiga caan uga dhex yahay dhageystayaasha ama daawadayaasha Soomaaliyeed? maxayse tahay waxyaabaha aadka loo xiiseeyo oo ay bulshadu daneynayso? waxyaalaha waxaan is oran karaa ugu xiisaha badan haddaan qiimeeyo waxaan oran karaa inay yihiin arrimaha bulshada. oo hadda waxaa moodaa dadku inaysan xiisaynayn waxyaalaha ama siyaasadii ha noqoto oo loo arki karay marxaladda waddanka ka jirta dadku inay ku qiimeynayaan oo ahayd in waqti badan ay u soo joogeen arrimo siyaasadoo taagan, xakirnaan, dagaallo. laakiin markii ay dhacaan waxyaalo gaar ah oo arrimaha bulshada ah aad mooddo inay mararka qaarkood samaynayaan trendi samaynayaan ama isqabsanayso sheeko weyn ay noqonayso. marka waxaan oran karaa hadda dadka Soomaaliyeed wax weyn ayay arrintaasi ka noqotay. mararka qaarkood xogaha aan helna waxaa ka mid ah dad miyiga jooga inay ku xiran yihiin oo podcastigii fahmeen meel akhbaarta ka hela ay noqotay
qaarkood aysan heli karin fursad idaacada ay ku daawadaan ama telefishin ku daawadaan ayaa mararka qaarkood waxaa dhici karta qof miyigiisii jooga xoolihiisa dhaqanaya inuu kula soo xiriiraya ama aad ka war helaysid oo uu leeyahay xogtaas waxaan ka helay muxuu ahayd bodcastiga tusaale annagoo kale barnaamijyadan sii dayno oo kale mararka qaarkood barnaamijka ciyaarahoo kale si gaar ah qof baa hadda kor igala soo xiriiray gobolka Sanaag meel baadiya oo igu yiri xoolihii waa la joogaa geelayga waa la joogaa barnaamijkiina waa la socdaa waxaa nala noqotay arrin la yaab leh marka isku xirkaasina wuu jiraa gudaha waddanka Soomaaliyana ama dhulalka Soomaaliyeedna caan ayuu iminka ka yahay podcastigu warbaahinada caadiga ah ee waaweyn ee Soomaaliya ayaad la shaqaysay maxaad u go'aansatay inaad aasaasto podcast ama janalada baraha bulshada ee aad adigu leedahay horta waa arrin igu jirta bay ahayd weligay inaan samaysto aniga warbaahin gaar ii ah ama anigu aan leeyahay waana qayb ka mid ah istijaaha nolosha qofka uu leeyahay inuu horta horumar ka samayn karo marka bacdama muhiimadeeda ay ahayd oo shirkad ganacsi aan aadi karin ama hawl kale oo ka baxsan muhiimadan aan kusoo jiray 30 sano ku dhawaad aan meel kale u bedelan karin ayaan ka fakaray waxaan kaloo arkay in ay tahay arrin hadda furan oo ah suuq furan ayaan oran karaa suuq ma aha inaan macdaar ku iibinaya ma ahan laakiin waxay noqotay arrin aan u arkay in hadda loo socdo podcast adduun iskugu tegayso marka kacankaas cusub inaan saameyn ku yeesho ka qayb qaato waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxaa iigu muhiimsanayd in isbeddel aan dhalin karo oo bulshada wax dib ugu celin karo iyo markii aan arkay warbaahinta ama ha noqoto kuwan ka soo shaqeeyey ama ha noqoto warbaahinta guud oo dhan wax maqan baan dareemay oo ah ama xaqiiqdii ha noqoto madax banaanidii ha noqoto waxa dadka u cuntami kara ha noqdeen oo dadka in loo soo gudbin karaa ama akhlaaqiyaadkii ha noqoto ama bulshadii siday u rabto wax fiican inay hesho akhbaar fiican inay hesho ayay igu dhalisay marka waxaan kaloo arkay in laga guurayo warbaahintii caadiga ahayd ama traditional media laga guurayo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa madaxa barta internetka wararka iyo warbixinada lagu baahiyo ee HBN Mawlid Xaaji Cabdi oo barnaamijka tubta nabadda noogu waramayay markana dhageystayaal waxaa sidoo kale noo suurto gashay inaan wareysi la yeelano Suhaybe Maxamed Badqas oo muddo aad u dheer warar wareysiyo iyo warbixino bulshada muhiim u ah ku baahinaysa podcastigeeda Suhayba oo ah wariye muddo dheer u soo shaqeynaysa warbaahinta ugu magaca weyn Soomaaliya ayaan ugu horeyn weydiinay wariye BBC hore ahaan maxaa aad ku soo jiitay oo aad u hal abuurtay channelada podcastiga ee aad leedahay haddii aan barnaamijka u guda galo walaalkayo waxaan arkay in mataqaanaa dadkii ay aad wariyaasha ugu mashquulsan yihiin siyaasadda iyo qiyaaladda marka waxaan isiri arrimaha bulshada xoogo waxaad moodaa dadka inaysan aad xoog ay soo saarin marka waxaan isiri haddii aad samayso platform ay dadka maaragtay ku soo gudbin karaan arrimaha bulshada oo dadkan ay kaga faa'iideysan karaan maxay noqon kartaa marka waxaan isleeyahay maadaama aan arkay arrimahaas ayaa igu mataqaanaa qaaday in aan channelkan aan furo oo badanaa waxyaabahan ku qabta ay tahay arrimaha bulshada wallahi waxa ugu weyn horta waxaan isdhihi karaa waa meel adiga madax bannaan tahay oo adiga mataqaanaa aad waxa rabta aad soo gelin karta adiga oo raacayo waxyaabihii maaragtay u ahaa saxaafadda inay raacdo marka waxaa dhiirigelintaas isii siiyey sida waqtiga oo kale waqtiga waa wax muhiim ah ka idaacadaha aad shaqeynaysa localka ama kuwa mataqaanaa maxalliga ama kuwa internationalka ah kuma suuragelaysa waqti badan inay dadka ay helaan ay ku hadlaan ay waxay rabaan uga hadlaan tan waqti ayay ku siinaysaa tan kalena waxaan isleeyahay iyada laftirkeeda meesha ku jirta waxay tahay maadaama adduunka hadda uu noqday technology oo la aaday iyada laftirkeeda fursad si dumar ahaan waxaan isleeyahay waxay ii siisay in aan dumar ahaan mataqaanaa aniga aan shaqaysan karo wax aan leeyahayna aan ku shaqayn karo taasna weliba ay ii sii suuragelinayso inaan reerkaygana aan ka warqabo maxaa kugu haga xulashada mawduucyada aad ku baahaysid baraha podcastiga sidaan horey kuugu sheegayba sheekooyinka aan raadiyo waa sheekooyinka arrimaha bulshada ka waxaan fiiriyaa sheekada horta sideedaba dareen ma leedahay oo sheeka dareen leh oo dadka soo jiidanaysa ma tahay
sheekooyinka kale aan sameeya waxaa ka mid ah kuwa guulaystay oo ay ka mid tahay ganacsiga oo ay ka mid tahay waxbarashada oo ay ka mid tahay ma garanaysaa dadka guul ka gaaray nolosha sheekooyinka kale aan fiiriyo waxay tahay kuwa xadgudubka ah oo tusaale ahaan gudniinkoo kale waa sameeya iyo kuwa maaragtay dhibaatooyinka gabdhaha loo geysto kale ama xadgudub wixii dhacaba waxaan kaloo sameeyaa sheekooyinka hal abuur kale sida abwaanada oo la wareysto dadka buugagta ama qoraaga ah oo mataqaanaa aan wareysto sheekooyinkaas gaarka ayaan xushaa mararka qaar sheekooyin waxaa jiro mataqaanaa viral ah oo trendi garaynayo bulshadana maaragtay saameyn ku leh kuwa laftirkooda waan soo qaataa waa kuwama dhegaystayaasha ama daawadayaasha bodkastigaada sideese ku heshaa feedback ama falcelinta ku saabsan mawduucyada aad baahisid sideese ugu xiran tahay dhegaystayaashaada waxaa tiri dadka idaawada dhowr nooc ay iskugu jiraan mataqaana dad yaryar dad waaweyn dumar rag marka badanaa markaan fiiriyo halka laga fiiriyo dadka idaawada waxay iskugu jiraan 17 jir ilaa iyo waxa ka koreeya ilaa iyo 60 iyo xogo ayaa maaragtay idaawado ama ay dhegaysta ka feedbacka marka aan ka hadlayna laba nooc ayaan u helaa dhanka SMS-ka oo Facebook ee dadka iigu soo diraan ama dhanka maarkano commentiga labadaas meel dhanka YouTube-ka laftirkiisa waan geliyaa iyadana mar walba waxaan ka fiiriyaa commentiga ee dadka ay ii soo diraan ayaan ka fiiriyaa dabcan badanaa waan fiiriyaa tan su'aasha ku saabsan sida aan ugu xiranahay dhegaystayaasha waa muhiim in dhegaystayaashaada aad og tahay waxa ay ka hadlayaan oo aad og tahay haddii ay jiraan mararka qaar waxaa dhici karta xitaa barnaamijyo fiican inay kuu soo gudbiyaan ee ku dhahaan oo barnaamijkaas raac oo mataqaanaa dabagal oo samee mararka qaar waxaa dhici karta inay kuu soo gudbiyaan talo mararka qaarna waxaaba dhici kartaba dad inay iska kaamaagaan ugu dambayn maxay dhegaystayaasha iyo daawadayaasha ka faa'iidaan bodkastiga haddaan tusaalooyin yaryar aan kuu soo qaato waxaa jiro mararka qaar inaan waraysto tar maarkinoo psychologist ah badanaa soomaalida waa og tahay oo taabuu ayuu ka yahay in ay qofka xitaa qof ugu xigo ay u sheegaan in mentally ama maskaxiyan aysan maarkinoo okay aysan ahayn marka waxay samaynayaan dadka commenti waxay igu soo qorayaan dhinaca SMS-ka gaarka waxay dhahaan walaalay saan baa la ii hayaa marka waxaan jeclaan lahaa mataqaanaa in dhakhtarka aad igu xirto taas ayaan u suurageliyaa dadka qaar oo aanan ku dhiiran karin dadkooda inay u sheegtaan tan labaad iyadana ma arkin oo aad dadka ay uga faa'iidaystaan iyadana waxaa ka mid ah barnaamijyo diini ayaan soo daayaa barnaamijka diiniga ahna badanaa waxaan ka waraystaa gabar ma aragtay PhD holder ah oo mataqaanaa dhigta jaamacad oo mataqaanaa islaamig ma aragtay wax ku soo baratay marka gabadhaas waxay suura gelisaa marka barnaamijka qoyska ama dhanka dahaarada marka aan ka sheekayno gabdhaha waxay ku dhiiranayaan inay su'aal isoo weydiiyaan dhinaca gooniga ay ugu soo diraan sidoo kale waxaan isleeyahay dadka waxaa uga faa'iideeya platformkeyga uga faa'iidaystaan waxaan usoo bandhigaa waxyaabaha ganacsiga ah tusaale ahaan maxaa horumar ahoo hadda socdo maxaa mataqaanaa dhulal ahoo la gadan karaa marka dadka waxay sameeyaan markay arkaan way soo dhulkii eegtaan ganacsigii horay ay u galaan marka taasna waxay u suuragelinaysaa qofki in uu helayo qof siinaya macluumaad rasmi ah aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dhegeystayaal taasina waxay ahayd Suheybo Maxamed Badqas oo barnaamijka Tubta Nabadda toddobaadkan nooga warbixinaysay muhiimadda broadcastiga ee dadka Soomaaliyeed haatanna waxaad nala dhegaysataan gabay ka hadlaya hal abuurka oo uu noo mariyo Liibaan Cabdi Warsame aad baad u mahadsantihiin toddobaadkanna waxaan idin hayaa tix la magac baxday hal abuur wuxuu yidhi hada gabay hikaadeeda iyo horisyada toosan hibe eebba weeye markay haybad gabay joogto layskama hadaaqee murtidahooda curinteeda nimbe garashadiisuu hadlaa had iyo goor noole aniguna halkaan degay milkaha hilinka suugaanta ka habaabi maaye waxay hibatay laabtaydu hiddaraaca maansooyinka iyo haybad lagu faano dadka hibada loo siiyey ee helan abidkooda halka ay bulshada uga jiraan lama huraankeeda halabuurka suugaanta iyo heesa dhaqameedka waxaa jira halbeeg lagu cabbiro tiraya heemaale marka laysku soo hooriyana dulucda hooyaale layskuma hayee gabaygu wuu ugu horreeyaaye hoodaale weeyiyo farshaxan haybad loo qiraye marna waa halays waare iyo helashadaad doonto hilinkiiyo waddada toosan buu kugu hanuunshaaye marna waa hub lagu meelmarayo hoote iyo leebe adigoo hareeraysan oo haysan qori gaaban horar iyo waraabiya haddii cadow ku heereeyo tuduuc lagu halgadaa ku filan habar dugaagoo dhan hadal badan haruub loo celiyo ahaan in laga buuxsho horaa looga quustay haddaan gabayga heenseeyo oo aan hargaantiga jirrabangeed ku yara heego hawraarta tulmoon mar baa lagu hanuunaaye hal abuurka suugaanta iyo hoballadan miigan hooyaalo gaba iyo murtida heese curuntooda
dadka hibada loo siiyey ee heerka sare gaaray hilbadirirka waa lagu yaqaan hagarla'aaneede aniguna hamuuntaan qabiyo hawshan igu taagan ka habsaami maayee markii gacan la ii haadsho hawadiyo waxaan kala hadlaa hirarka dhaadheere hindisooyinkoodii waxay hibata laabtoodu labadaba dadkay kama hagrado daalna haba sheegin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa liibaana cabdi warsame oo tixdaasi gabayga ah inoo marinayay intaas ayaanu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkanii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen maxamed salaad cusmaan iyo anigoo ah faa'ise cabdi warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay facebooka oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee dhegeystayaal waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan